marka aad ku sugan tahay gudaha jiimka kaliya maahan meel aad jirkaaga ku dhisto balse mararka qaar waxaa jira waxyaabo dhaawac ama dhimasho naftaada u geysan kara waana markii aad isku daydo in aad qaaddo bir aad u culus ama aad si qaldan u qaaddo muuqaalkan waxa aan kugula wadaagi doonaa dad halis ku galay gudaha jiimka markii ay badankood qaadeen waxyaabo aad u culus sidoo kale waxyaabo aan caadi ahayn oo jiimka gudihiisa ka dhacay ayaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa balse muuqaalka like-ta ka baqaylin haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo bir oo subscribe taawo ninkan waa mid qaadaya bire aad u culus balse enerjigii ayaa ka dhammaaday oo birtii uu iska celin waayey tani ayaana halis gelin karta naftiisa oo qoorta ayay ka saaran tahay meeshana saan is leeyahay waa cidlo oo qof caawisaa ma joogto birtuna waxa ay si xun uga saaran tahay qoorta wiilkan isaga oo birihii lagu aalimiiteynaya wato ayuu isku dayey inuu jagto kaco gabadhan waxay toosisanaysaa kaamiradeeda balse maxay samayn doontaa ninkan waa mid birta ku sii deynaya gabadha khatar ayuuna geliyey si kastoo tahay waxbaa gaaray gabadha wiilkan wuxuu ku feertamayaa barkintaas balse si lama filaan ah ayay ugu banaynaysaa ninkan inta mashiinka oo xoog ku socdo looga degay ayaa la dhahay waa markaaga laakiin waxaan is leeyahay wax yar ma gaarin ninkan waa mid isku dayaya in uu qaado miisaankan saa'idka u culus balse qoorta ayuu iskaga dhuftay wax yar ila fiiri ninka la wareysanaya gadaashiisa nin kale ayaa wareysi laga qaadaya wiilkan birtii uu ku aalimiiteynaya ayaa u soo baxday waxaan is leeyahay waxbaa gaaray ninkan wuxuu isku dayayaa in uu qaado bir aad u culus laakiin halis ayuu galay wadaadkan xawaaro uusan wadnihiisa xamili karin ayuu geystay waad maqashaa waxa qaylo ka yeeraya dadka badanaa waxa dilaya waa miisaanka aadka u culus oo ay iska qaadayaan mana ahan wax fiican haddii aad jiim dhigato iska ilaali haddii kale kanaalkan cabdinaasir ayaa lagaa daawanayaa wiilkan waa mid ku aalimiinteenayo miiskan markan waa ii toosi weysay waanu cudur daaraynaa wiilashan waa kuwa isla jimicsanaya balse maxaa ku dhici doona markan oo kale waa marka ay kugu socoto heesta meesha ka daaran ila arki wiilkan dhibaatada gaartay laakiin waa xariif uu iska sii watay si aanba loo fahmin wiilkan birtii uu qaadayay ayaa ku fikatay kana sidoo kale miisaanka ayuu celin waayey si xun ayayna ugu dhacday birtu wiilkan waa mid aalimiinteenaya laakiin wax uu sameeyey wax qaldan oo birtii ayuu ku dhacay gabadhan iyada oo kaba dheer wadata ayay isku dayday inay birtaan qaado ninkan waa mid qaadaayo miisaan aad u culus iyada oo aysan meesha ka dhoweyn qof caawiya khatar ayuuna geliyey naftiisa ninkan odayga ah waxaa xabadka uga dhacaya miisaankii uu qaadayay
middaas oo jug xun gaarsiisay. ninkan miisaanka qaadaya waxa uu qaadayaa isaga oo matagaaya si fiican ila fiiri waxaan biyo afka ugu jiray waa ay ka badan yihiin ayaan isleeyahay. yarkan waxa uu isku dayayaa in uu qaado miisaankan aadka u culus. ninkan kalena isaguna bir culus ayuu qaadis dhahay meeshii uu ku dhacay ayuuna ka soo kici laayahay. xariifkan ordaaya isna wax yar kuma dhicin oo wejiga ayuu ku dhufsaday birta. wiilkan birtii uu ku aalimiinteynayay ayaaba ka jabtay. gabadhan waa mid ku aalimiinteynaysa darbiga laakiin miiskii alaabta saarneed oo dhan ayaa ku soo dhacay. ninkan isaga oo bariis iska qaadqaadanaya ayay yaanyurtan dhibka badan dusha ka soo koraysaa. fadlan muuqaalka like saar subscribe-na dheh si aad ula socoto muuqaalada xiisaha badan ee aynu halkan soo gelino maalin walba.